وهاجاك داود يال ولي waxaynu ku guda jirnaa wararkeeni gudaha iyo dibadda iminkana waxaad ku soo dhawaataan warar dheeraad ah maamulka degmada Burtinle iyo kan gobolka Nugaal ayaa si wada jir ah saaka barqanimadii ka bilaabay burburinta guryo sharci darro ah ee laga dhisay hareeraha wadooyinka degmada Burtinle si kor loogu qaado hanaanka biliceed ee degmada una hagaagta isu socodka gaadiidka iyo bulshada duqa degmada Burtinle injineer Maxamed Maxamuud Buurdabi ayaa u mahadceliyay bulshada reer Burtinle sida wanaagsan ay ula shaqeeyaan maamulka sida aad u jeedaan maanta waxaanu banaynaynaa wadooyinkii la falay wadadii ugu horeysay waana wadadii degmada ku soo leexanaysay iyo maxkamadda iyo xafiisyada dawladda waxaan aad u mahadcelinayaa shacabweynaha reer Burtinle oo soo dhaweeyay horumarka iyo wadooyinka la banaynayo ahaantii ayaga gacantooda dadka inta badan ku jabiyay taasina waxa weeye shacabka iyo dhammaan reer Burtinle waan u mahadcelinaynaa howlaha badan oo ballaaran oo baaxad leh oo ka socda degmada oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka ahaantii waxa weeye howlgal ballaaran oo dhanka wada furista iyo dhanka waxa weeye xirma qaadista iyo cashuurihii oo la kiciyay marka waxa weeye wadada tan waa wadadii koowaad waxayna ku dhamaataa qaxootiga waa wadada adugu ilaa iyo 300 mitir Umar Abdullahi Faraweyne gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa xusay in halbeegeedu yahay isku tashi haddana ay guulo la taaban karo ka gaareen dhinacyada xirmooyinka canshuuraha iyo hagaajinta bilicda iyo hanaanka magaalada Soomaalidu waxay tiraahdaa war magaalo wadadu ku qoran yahay ballanqaadkii ahaa isku tashi ee dawladda Puntland ay ku dhawaaqday madaxweynuhu ku dhawaaqay baanu wadnaa waxaanu ka soo bilownay isbaarooyinkii xoolaha waxaanu qaadnay 110 isbaaro xoolaad intii kalena wali shaqadii waa socotay ciidamadii waa wadaan 450 baana loo ku sheegay inta la yaqaan wax kale way dhici kartaa wali iyadu waa socotaa ciidamadiina waa jiraan waana socon doontaa ilaa iyo dalkan laga waayo Burtinle iyo inta laga xukumo hal isbaaro xoolaad waxaanu ku xijinaa canshuurtii dawladda oo hadda socota maalinta saddexaad maantana sida indhiina ku aragtaan waxaanu bilownay wadooyinkii wadadii koowaad baanu bilownay waana wadi doonaa ilaa iyo Burtinle sida ballanqaadka iyagii ahaa haddii ilaahay idmo aan u samayno wadooyin waaweyn oo la mari karo oo dadka reer Burtinle ay ku farxaan kama tagi doono ilaa aan hawsha dhamayno qaybaha kala duwan ee bulshada Burtinle ayaa si wanaagsan u soo dhaweysay howlgalkani lagu horumarinayo bilicda degmada Burtinle shaqada wanaagsan oo degmada Burtinle ka socota iyo nawaaxigeeda oo ugu horeysaan qaadista xirmooyinka ay ugu horeeyaan oo ay ku xigto canshuurta la kiciyay oo 3 bari soconaysa oo ay ku xigto sida aad aragtaan wadooyinka la bixinayo waxaan leeyahay dawladihii hore dhul ma dhisi jirin laakiin dawladdan cusub oo hadda maamulka gobolka iyo maamulka degmadu waxay bilaabeen noloshii dawladnimada laga rabay reer Burtinle waa soo dhaweynayaa Ali Ibrahim Qobi Somali Cable Burtinle